السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا همين عصب إيو wellness with إكرام. عابو موضوع عن سو قادني وحو كسابسن يهي wax oo gratitude لدهو أو gratefulness أو معنى هذا وحواي basically mahad celin. markasa موضوعنا maanta waxaan soo qaaday because runtii markii la fiiriyo arrimaha oo mashaakilka oo xaalad nafsiya ah oo ama cudurrada neeto oo maskaxda galaan oo especially markii oo environment ay u sabab tahay depression ka anxiety waxaas dhan these days way bateen markii la fiiriyo aad u bateen dad badan waxaa arkaysaa oo ka tabanayaan xaalad nafsiya ay qabaan of course stresska iyo dhibaatooyinka oo adduunyadan way badatay haddii la fiiriyo ayaamihii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma la arki jirin qof oo depression qabta iyo anxiety qabta iyo waxaa markii aad loo fiiriyo waxaa la arkay maxaa u sabab ah horta waxaa neeto runtii haddii la fiiriyo maxaa waay ay cudurrada neeto all the sudden hal mar ay usoo wada baxeen oo awal loo arki waaye mid horta waa la dhahaa okay cilmigiia horumar gaaray so damar oo horumar aan gaarno oo cilmi aan yeelano waxyaabo cusub soo baxaan waxyaabo cusub la kulmeena laakiin mid kale oo xaqiiqo ahna way jirtaa inuu waxa waaye inay dadkii damaci oo bate oo inay waxa waaye qofka hamigi dadkii oo bate oo qof kasto yacni xaasidnimadii iyo xaqdigii inuu bate marka waxyaabo badan oo waxaa jiraan oo soo ayaamahan dambe bateen zaa'id noqdeen oo yacni dadkii inay wax isku quurin inay dadka isxasdaan isxaqdiyaan inay qof kasto hamigeeda inuu kor aaday oo qof ujeeda malaha waxa ay haasato qof kaleeto waxay haasato loo jeeda so waxyaabahaas dhanna waxay keenayaan stress iyo murug iyo yacni cudurro badan dadka u imaanaya sidaas darteed so marka maanta mawduuca aan soo qaato waxa waaye qofka horta sidee oo gratefulness ونقول قف أو grateful يعني إنه مهد علين سو ميرا it's very important قف إنه مهد علين سو بس إلهي ومهد علي سو يدك نعيا يد جوجان أو قرب كلاوين also so مركا سيدي مركا لو نقول كرا قف أو grateful قف أو يعني أو basically قف رالي عمل واي قف grateful مركا قف أو grateful قف كأيه تاي رالي واي قف أو وحي هاستيك وقناعسن تهاي الحمد لله على كل شيء هذا سو قلبض مركا aan soo qaatay waxa waaye qofka maxay suubin kartaa si ay u kordhiso mahad celinteeda iyo qanaacadeeda basically inay qof raali ah noqoto oo qof qanacsan ay u ahaato maxaa suubin karnaa soo mid koowaad waxa waaye suubin kartid waxa waaye maalin kasta markaa soo kacdid horto maskaxdaada sarta markaa soo kacdid maskaxdaada geliyino okay already alhamdulillah waa soo kacday because what dad badan oo soo kicinina jiraan إن سحران أو سوكعين so مدو كوات وحواي إن ما هاد علم الله وسميسد إنه سوق عده and then مسكح هذا يكون تاكناته ما أنت وحكستو حنقفيرنا الجار أهانات أو المهد علين أهانقفيرنا درس وحياة بدنا هذه هي ستة أوضة كإيه هسنين so الله رف وقتك بدن كيسة ما أركني أنا كوحة أهاسنا وحة أهاسنا we take it for granted we don't like مئنا استاكنا هالمر ما فيرني معاها سنة وحالي عفيرنا وحا هيسنين so maybe صبحي مركزو كعدد ما دحاقي لي مانتا I'm gonna be grateful وحكست هاستا أو إلهي وقومهت علينا every little thing I mean نفس كان نفسي يسيد نفترك وحواي رحمة من عند ربنا إلهي وحو نسيه so يعني صبحي مركزو كعدد تاسك بلا so مدك waxaa samayn kartaa inaad journal soo qaadatid ama piece of paper warqad maalin kasta waxaa qortaa hal wax ilaahay ugu mahad celinaysid ama hal wax ama labo or saddex whatever awoodid inaad qortid maanta ilaahay waxaan ugu mahad celinaa inaa caafimaad aan qabo waxaa ugu mahad celinaa maanta inaa hebel oo isoo dariso iga qusul siiyo waxaa ilaahay ugu mahad celin karnaa ilmahayga cunugayga maanta iyo smartnimadiisa because a lot of times ilmaheena hataa buuqa iyo maalin kasto stresska aan ku jirno iyo ilmo waa rabsho badan yihiin waa dhib badan yihiin canaan iyo waxaan ku jirnaa borsashaal laakiin hal mar haddaa istaagno ilmo caafimaad qabaan aan haasanaa ilmo oo waxaan qabnaa smart oo very يعني ilaahay maskax fiican oo siiye ilmo oo nacaawinayaan aan qabnaa so cunug kasto quality oo qaba so haddii aan istartiibin kasto aan fiirino يعني cunug si gaar ahaaneed aan u fiirino waxyaabo badan aan arkeena oo
qiimo leh cunugaaseyta oo ina alxamdulilah ku dhahne instead of ina bursaheena oo nacladeheena oo waxii oo ka dhiman leh aan u jeednay dhibkiisa daris waxyaabo kale ugu fiican yahay jiraan and it's very very important ina xataa qofkaaseyta cunuga ha ahaada ama qof weyn ha ahaata inaa dhaho you know thank you waa mahadsan tahay maanta saa ii caawinta you know waa ku mahadsan tahay inaa maanta waajibkaaga qoratay anoo kugu qaylin oo ku burbursanin yani saas camal waa ku mahadsan tahay walaalkaaga yar inaa wax u qabatay it's very nice yani inaa la suubiyo so maskaxdaada kooda inaa gelisid mida kale inaa qortid gratitude bu inaa qortid maanta waxaas ilaa ugu mahad celinaa ama maanta hebel iyo hebel aan u mahad celinaa because of waxaaneetoo ii qabtay mida kale waxa waaye inaa mid saddexaad inaa bedeshid wax oo negative to positive negative waxa waaye qof oo waxaa dareento wax inuu kaa maqan yahay camal so intaa waxaa sida inaa qabsana maanta dhanka qayli lahayn aan ka muragi lahayn maybe stop stack waxaa ku dhahdaa okay so okay maanta guriga qabuub waaye masalan heedkeyga mashaqiyahooy so intii oo stress oo noqon lahaay se masalan alxamdulilah you know stoofka waa shaqeynaya maybe shaakullah karsan karnaa cabayna that could be like a good thing you know ama alxamdulilah bustayaal fiican aan qabnaa oo culus so bustaha saarayna hadduu guriga qabuub naga yahay caabo yani waxaa intii aan qabsan lahayn halka wax oo naga maqan oo dhibaato weyn aan ka dhigi lahayn caawse oo seexanayna iyo gurigan ku noolaa karna qabowgiisa iyo dariska aadayna no you know guriga qabuub waa ilaa bustayaal ahaasanaa dhar ahaasanaa aan gashan karnaa waxaa wax kulan ka cabi karnaa biyo kuleel ahaasanaa weli aan ku qabaysan karnaa ama aan ku dhaqdhaqan karno so always waxa oo negative ama salbiga ha qaadanin wareeji wax oo positive u bedel you know maybe waxa dhici karto qabowgaaseyta inuu wax fiican noqdo oo familka inay isku imaadaan hal sarar ku seexdaan isku leeyaan ika well maybe haddii oo heedka oo halaabi lahayn familka hal sarar inay soo wada koraan ma iswada you know ma ishuuri lahayn ma isku leelahayn so it's a good thing you know ilmaha way jecel yihiin markii hooyo absartay soo wada koraan so fiiriya yani that's something to be grateful so alxamdulilah yani because of AC-ga naga halaa heedka naga halaa caabo kulligeen hal sarar kornay waa isla wada seexane everybody's happy so that's a good thing mid kale si qof oo qanuuc oo raaleeh u ahaato qofka waxa waaye qof oo waxa inay ahaato modest ama down to earth ama qof oo waxa waaye mutawaadic inay ahaato qof kibrani oo hoosan ka taagayso cirka inay ku socoto u maleyso ma noqon karto qof oo qanuuc oo raali ah so always try inaa qof oo waxa iska dhigtid degan oo yani dadka lamid oo waxba dadka ma ka bedelanteed kama sareysid dadka ha iska weyneynin soo deji tartiib waxaa iska dhigtaa qof oo yani oo waxa yani mutawaadic try your best ina waxaa noqotid qof oo yani down to earth si oo markaas dadkana ay ku jeclaadaan hadhooti adina oo naftaada ugu qanacsanaatid oo waxa u dareentid inaa raali tahay mid kale waxaa jirto give a compliment to dadka oo kula joogaan inaa يعني أمان سيسيت you know and it's so important أمان تماها أفكار كده ما يعني قلبي قالك صوب أحد على الربا لكن something like you know قفك يعني ما هتصنت هاي مانتا you know سايعة وانتي أما أو that's appreciation وأنا قفك تشتيت هرت إنا ومهد علينو سيدا كفرح سنتها إنك عاونت مانتا قفا وحد هكرتا oh مانتا you know I like your dress it's very pretty عم بركي وكل حسني هاي I like it يعني قفك something أو قفك فرحنايو you know قفك ويك فرحيسا or they will feel like oh عم بركي وعلى هلا you know and أديكن يعني a good relationship عصوب صته and again as I said لكن سلام هاي وحواي قلبك إنك صوب حدا أفكار كده هلا معها because أفكار هدي يا عمرك كهلا عمل هذا حواي أوكي وجستين وسأن ولو فهم هذا كده بعلا معها so it's very important إن قلبك إكسو بحذا and you mean it هذا كان هي سيد إن هذا الأرون كاتهاي أو هذا مركي أو مثلا قف كسو وعضو عمل هديهن تيسو عصو you know be grateful alxamdulilah qofka ku soo wuxuu you have somebody oo ku soo raadiyo so marka ka qabatid la oh ma waa faraxsanaa codkaagina ma la qofiyo you know ma ku maqlinaya ma haaneeto just show qofka ku soo wacde in ku faraxsan tahay in ku soo raadisay maaha in dhibso hoosid ama you know culays kugu tahay hadalkeeda iyo waxaasita so it's just nice in qofka ahaatid oo waxa fiican
afkaaga wanaajisid because you know wax wanaagsan markuu afkaaga kasoo baxo dadkana waxa waaye xiriirka uu fiicnaana. mid ugu dambeysa waxa waaye waxaa sameyn kartaa also wax oo la dhaho masalan like volunteering camal haddii oo masalan like masaajidkaaga ka volunteer gareeyo waxa adiga aaminsan tahay yani sometimes يعني qof oo ku baahan oo caawinaad u baahan caawin you know it will make you feel good هذا waxaad dareemaysaa markaas inaa qof wax u qabatay yani qofaa ka farxisay anytime aan qof ka farxino anakeenoo soo noqonaysaa farxadaasayto so xataa waxaa kugu filan qofkii aad maanta wax u qabatay oo ku dhahday you know ilaahay faraj hortaada ha dhiga ama ilaahay garabkaaga ha galo duco oo qof qalbigiisa ka soo baxday waaye oo loo baahan yahay you don't know waa ma ogaan kartid waqtiyada ay samada furan tahay oo ducada ay maqbuulo tahay so ay jaanis ay awoodid inaa qof caawintid ama wax u tartid u tar you know volunteer garay hadhihin dadkan gaalo waay maxaan ka caawinaya you know there is the homeless shelters bishii qadada miya ay dhiibaan hal maalinta qadada soo dhiib soo caawin dadka it's faa'iido waaye yani dadka kasoo farxisay waa volunteer garaysay waqtigaaga something oo useful ah kusoo bisay and it will help you aday kusoo noqonaysaa labada jeerbo so I really do believe that a lot of times waxa oo dhibaatooyinka badankood noo keenaan oo waxa waaye ayaamaha neeto se adduunyada isku bedeshay and it's very important inaa mahad celinteena badano ilaahay u mahad celina alfi mara markaas kadibna bani aadamka iyo dadka dhinacadeena joogaan oo maalin kasta na caawiyaan oo naga qosol siiyaan oo waqti fiican aan oo la qaadano dadkaasaytana inaa يعني وشيكنو أن أنا ما تسنتهين you know ما أنت درتانا قصل ما أنت هذا عادي ما تجوج لهن ما سهلها هم قصل لهن عمل so أنتاس إيو والناس بذكرام وما تسنتهين إن شاء الله and هاي لوين إن like نهدي share and subscribe the Facebook the website the channel and إن شاء الله وإنه أسبوع صعدوا having one accent السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.